السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدون جوجو محارك تقول runtii waxyaabo fara badan dunidan waad ku arkaysaa intaad nooshahay runtii saan qisooyinka ugu dhex jiray oo qisooyinka u baarbaarayay waxa ay soo baxday qisada igu yaabka badneed aan arko dalka India waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh runtii dalka India waa dadka labaad ee dunida ugu badan markii laga soo tago China waxay leeyihiin diino fara badan oo gacan ku sameys ah waa dad aad iyo aad u fara badan badnaashahooda marka waxay keeneen qof walba wuxuu doono inuu iska caabudo wuxuu doono inuu isaga dhaqmo soo doono inuu dhaqmo haba ahaataba annaga ama gaal ha noqono ama muslim ha noqono waxaan nahay bini aadankana diiniyan uu ku kala duwanaan karaa laakiin dareen ha noqdo iyo waxyaabo kale boqolkiiba 90 inuu ku kala duwanaado way iska yartahay dalka India waxa ka dhacday dhacdo cajiib ah qof waxa la arki jiray qof kala jeclaanayo waxa la arki jiray qof bini aadan jeclaanayo guursanayo laakiin dalka India waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh gaalada waxa la sheegi jiray waxa maqli jiray ay ayaa dhaxla waxa maqli jiray guriga hadii cid kale loo waayo ayga guriga jooga ayaa dhaxlaya balse gabar ayaa wuxuu jaceelkeeda noqday ayga ay guriga ku soo wada koreen oo guriga u joogay oo guriga waardiga ka ahaa ama gaarka ka hayay ay jaceyl waxay u qaaday midka bini'aadamka loo qaado mid ka weyn waxay go'aan ku gaartay inuu ayga guursado ama uu ninkeedii guursanayay ee caruurta u dhaleysay inuu noqdo horta waxaad la yaabaysaa adduunkan dad badan oo waxaa jooga maskixiyan aad iyo aad u liita waddanka India wuxuu ka mid yahay dalalka maskaxdooda aad iyo aad u liita waayo runtii horta waxay leeyihiin dad muslimiin ah dad khubaro ah caalamka waa dadka loogu dambeeyo xagga sayniska sida ay tahay waxay leeyihiin dad maskaxdooda aad iyo aad u liidato oo aad iyo aad cawaan ah anaga cawaan waxa uu naqanaa dadka qaaradahan Afrika meel kamid ah ku jiraan ee aan dadka ku dhaqmi karin ee dadka ka gooniga ah ee nolol gooniga ku nool laakiin dalka India iyagoo dadka magaalada ku nool ama gobol yar ku nool ay waxay u dhaqmayaan sida cawaanta oo kale hadda gabadhan quruxda badan ee idan muuqata waxay go'aan ku gaartay in ay guursato oo nolol la qaadato ayga gurigooda mar walba ka ahaa gaarka ama waardiga ka ahaa yaraanteedana ay guriga ku soo wada koreen asigoo yar ay hooyadeeda ka soo qaatay wadada asigoo ku dayacan ay ka soo qaaday ee guriga keentay ee xanaaneysay ee waardiga guriga ka ahaa ee albaabka hortii seexan jiray oo ka ilaalin jiray wax walba guriga ku soo xadgudba ha noqdo tuug caadiya iyo waxyaabaha kale oo asiga uu difaaci karo marka gabadhan waxay go'aan ku gaartay inay guursato aygan marka go'aanka haba gaartaba ka soo qaad ayada go'aan bay gaartay waa qof maskaxdeeda intaas noqotay inay go'aanka ku gaarto ayga guursado laakiin maxaa loo baahnaa in hooyadii kula taliso in waxan bini aadan aan xabiyaan yahay aysan caruur dhal karin bini aadan wax u dhali karin inuu isku jinsi aan xabiyaan bini aadan ilaahay ka dhigay oo wax uu awr ilaahay uu yahay wax ugu qiimaha badan bini aadanku yahay inay ka dhaadhiciyaan wax oo ayda ka maskax roonaado oo fahansiye in waxaan ay macquul ahayn familka oo dhan walaga way waxa la leeyahay gabadheena iskoor bay dhigaysaa oo waxay sameynaysaa waxaysa dadka kala sameeynin marka waa inaan ku garab istaagnaa ku taageernaa ninka ayga ag taagana u jeedin ee sharbaha weyne waa aabaheeda wuu ku faraxsan yahay gabadhiisa inay ayga guursato oo ayga uu la seexdo ama uu isticmaalo ayuu ogol yahay marka waxaad arkaysaa diinta islaamka mooyee diinahan gacan ku sameeyska oo dhan inaysan sharaf iyo qiimo bini aadanka ku lahayn waayo waxaad arkaysaa diinta islaamka waxyaabo far badan ay ka reebaysaa oo adigna damiir ahaan aadan ogolaanin laakiin diinahan kale gacan ku sameeyska ah waxaad arkaysaa waxyaabo far badan ay ku banaynayaan ilaa ay damiirkaaga uu shaqeyn waayo ay ku gaarsiinayaan marka waxaad ogaanaysaa walaal hadaad muslim tahay
oo qof ilaahay ku xiran tahay waxaad haysataa diinta ugu wanaagsan waayo diintaada adigoon xadiis lagu soo qaadanin aayada lagu soo qaadanin waxay kugu abuuraysaa dareen binaadinimo iyo damiir hadda adiga ayaan ku weydiinaa gabar yahay haddaad tahay qof muslim ah oo ilaahay aaminsan oo eega taawashadiisa hadda annaga nagala xaaraartamay la dhahay eega korkiisa qoyan yahay adina gacantaada qoyanta haddaad taawatay 7 jeer iska dhaq ama 7 jeer iska meer haddii ay gabar adigoo kale ama kaa qurux badan ba fays ahaan laakiin adiga damiir ahaan iyo dadnimo ahaan aad ka qurux badan tahay oo waxa tahay qof islaam ah wax ku gaari kara ma jiro laakiin almuhiim adiga ma ogolaan lahayd in ay aad lagu sheegay diinta islaamka hadii jirkiisa ay taawatay 7 jeer inaad iska dhaqdo inuu jirkaaga taabto oo adigoo marala ama qaaban jirkaaga uu taabto ama xubintiisa taranka adiga kula soo aado ood ku toobartid wali adiga ilaa ma yaqaanin kan bini'aadam si loo isticmaalo ma yaqaan ma ogtay waa ay wax bayaan adiga ayaa baraya sidii bini'aadamka loo isticmaali lahaa adiga ayaa baraya runtii wallahi waa damiir xumo waa dadnimo xumo ilaahay ayaa mahad leh oo cizo leh oo sharaf leh oo islaam naga dhigay oo qiimo noo yeelay qiimaha maanta hablaheena ama dadkeena ay leeyihiin waa muslimnimada iyo qiimaha sharafta aan leenahay maanta haddaan ahaan lahayn dad muslimiin ah waxaanu dhaqmi lahayn sida dadkan oo kale marka waxaad noqotay qof muslina 100% haddana Soomaalida waa muslim marka gabadhan go'aansatay in ay eyga la aqal gasho waalidkeedana ku raaceen iyadana ku faraxsan tahay adiga maxay kula muuqataa maxay kula tahay say kula dareenkaaga sidoo yahay markaad aragtay gabar sidan u qurux badan oo haddana ay la aqal galaysa ama ay guursanayso haba guursatay waalidkii ku raacay arintan ee ayada ku garab istaagana ayaga maskax ahaan sideed u aragtaa diinta islaamka diinal ahaan inaysan jirin qiimo ahaan sharaf ahaan cizo ahaan horan waa u ogeen haddana maalin walba markaan aragno dhacdooyinka noocan oo kale waxaan sii ogaanaynaa anagoo awalba ogeen inay diinta islaamka keliya uu bini'aadamka sharaf ku leeyahay diin kale uu sharaf ku leeyahay aysan jirin wax walba oo adiga aad samaysid diinteena islaamka wax gaari kara ama sharaf ku gaari kara ama cizo ku gaari kara insan jirin marka walaal waxaa tahay qof nasiib badan haddaad tahay islaam oo aad ka sii tahay Soomaali waayo Soomaalida waa wadanka kaliya 100% muslim aan isnacno aan isdibno aan isdilno laakiin almuhim annaga waxaa qiimeen aan ugu jirnaa 100% wadanka muslimka marka quruxdan ay ha kula noolaado imaam ad-dacwa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh